السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Libraries of Computer waxay idiin soo gudbinaysaa cashir database aynu ku qaadan doono. Casharkan magaciisuna waxaa la yiraahdaa database OSIS. Sida aad u jeedaan database-ka waa kana waxaa la yiraahdaa database OSIS. Computer-ka uu baran yahay marka aan sii guda galnay waxaynu ku baran doonaa sida loo isticmaalo. Waxay iga xasuusaa casharkan waxaa idiin soo gudbinaya aniga Cali Cabdiqaadir. ayanu ku dhufana laba mar waxaad awoodaa inaad midig ugu dhufato kadibna aad open dhahdo software-ka ayaa soo kacay software-ka markii uu horeeyay ku shubtid waxa uu ku leeyahay u sameey username iyo password geli haddii jeed meeshan waxa ka muuqdo add user marka wuxuu leeyahay u sameey username u sameey iyo password marka username ayaan u sameynayaa وانجليزي وحوليه username waxaan ka dhigay Ali the user Ali has been successfully created ومعناه waxay tahay waad ku guuleysatay inaad sameysat waa kan markii hore meesha waxa uu saaray wajigan hore ah oo ku xayisiinay database-ka waxa uu kooban yahay marka ma baahni kan iska cancel kalo tade hadda waxaynu joognaa database-kii OSIS dhexdiisa waxyaabo badan uu leeyahay ujeedid file display tools windows iyo helbiga meeshan ujeedid design new display adiga sameeynaya macna form cusub kan soo gidi istanbul cusub keensa iyo copy display design iyo barnaamijyo badan meelaan ujeedid ka muuqdo marka waxaan si guud galeynaa misna sameeynaa barnaamij ana inoo gaar ah aynu ku dhufana kan design new display waa kana oo soo kacay magac sameey marka magac u baxso waxaan dhihi doonaa sameeyna student form aynu ka dhignay meeshan background color ana color asmana color-ka aynu aysan waa noocan oo color arjid ayaa dooranaysaa hada uma baahan inaan wax sii doorto kadibna waxaa leenahay next oo soo kacaya waa kana kani aan iska xirno horta ama kan waxaa dhigi kartaa markaad rabay inuu marba kugu soo noqdo meeshan jeega ka qaadaysa waa display when opening the designer wajida student form oo soo kacay marka naqshadii aan sameynayaa iyo sidii aan ka rabo iyo barnaamijyada aan ka rabo marka waxaan ku bilaabeynaa markii hore sidiisa marka aad rabto database sidiisa waxa wasban tahay inaad leedahay shicaar mis logo marka aynu ka bilaabno logo aynu soo qaadano xilli aan logo noo diyaar ma jirto laakiin database-ka logadu wata ayaan isticmaalaynaa kadibna open wajida hadba sida uu soo gelayo saaniyada mid ku dambeeyaan doortay hadba noocaada dooran kartaa muhiimadu waxay tahay inuu kuu soo baxo software-ka aad rabtid logadaas aad u rabtid waa kana uu soo baxay logadii kadib aynu soo qaadano text file كنا عين قولنا number of student number no st student number يعني أرضي وحال الربا student number كيس سجيت كان مشان لما لو حان قضاء يعني كتو سينكرنا نسيب ابنه كان قال عن قرينا student name student number student class لكن هذا اللي ما مشكلة حنا كذا يا كاوي كرتان أو كوسي حجينه level aan soo qaadano level ayaan soo qaadanay taasoo waxaynu ku qoraynaa gender yani waxa uu yahay lab iyo dhadig okay kadib waxaynu tagaynaa checkbox ayaan dhigana meeshan waxaynu ku jiidno ku qoraynaa male maninba malab
waxaan kalaan leenahay mid kalaan soo qaadanaynaa dhadig aan ku qoraynaa oo ah female ujeedaa kadibna waxaynu leenahay qofkan ardayga taariikhdoo dhashay loo baahan yahay taariikhdoo dhashay waxaynu leenahay date of birth waa DOB soo gaabeynay date of birth waa taariikhdoo dhashay markaan waxay raacsan u jiidano date of birth waana mid kale ardayga waxa laga rabaa in laga hayo sawir waa inuu cabirkiis intaan la ekaadaa waxaynu leenahay photo waadi meeshaas ardayga midda kale ustaadka mise macalinka markuu arkaayo waa inuu haystaa information ku filan taa darteed waa inuu isticmaalnaa note oo ardaygana wuxuu yahay ka sheekeenaya waxaynu leenahay note midda kale softwareda kale waxa ugu duwayay aad buu sahlan yahay oo waxaad ka dhigan karta luqad alla luqadaad rabto xuduudda meeshaan aad oo ku dar waa bedelaysaa oo waxaad dhigi kartaa okay close dheh laba mara kili ku leedahay meesha ujeedaan shan adka ah ku dar aad dhigi kartaa had mar oo diyaar ma inaan bedelo ku dar aad dhigi kartaa luqadaadaad ka dhigi kartaa midaa rabtid ayaad bedeli kartaa midda kale information intaan waad kasii badi kartaa marka hadda aniga waxaan sameysanayaa intaan ayaan ballaarinayaa يعني waxaan ka wadaa macnaha waan haweenayaa shadiisa u qurux badnaa saan u qurux badnaa aan jiido aan ka soo bilaabo marka kor isma tahay hoos for maadaama kan number 1 aan ka dhigaya iska yaray magac ku filan tahay وبدا كوكل حدوبيه كان حريق متوس لاين وكو تسناي inay isku aadeeyeen kalaaska ma dheero waa ka weyn yahay sida leh waa maadi kana way wada sameeyeen nuudka qaad nuudka dhig booskan marka intaan iyo in kale ka badan ayaad ka dhigan kartaa laakiin intaan ay aniga ku soo koobo macnaha waxaan ku sinay kaliya short form family aan ka siinay inta kale ada si wadanaya marka kadib waxaanu leenahay save and close marka dhameysno naqshadii save and close inta kadib inta taas aan dhigin koor waxaanu sameyn karnaa focus ayaan gelinaynaa waa kan focus ayaan gelinaynaa saan u qoran ma aan qorimayno sa u jeedo focuskii ayaa ku jira waa ka dhiman waa ka boxka wareeg ayuu ku jiraa mid kale aad qaadaysaa saan ayaad ugu soo xiray kuwan wax ku qori maysid hadda waa sidii hore waa uu ka qurux badan yahay kadib waxaad leedahay save and close يعني سبقريح واو نحرق يعني كده هذه ماشان مركب عم بحين هذا student form وكنا student form تقدر نحكي بدش edit or delete يقول وكنا سوفت وير كي حتى ما حكيت عن جوجل وراك مثلا بيناي إلا ما حنقولنا أد مثلا أو جديد حتى student form 0 of 0 يعني حكم مجرى 0 إذا نضم فيه تنمى ضروري حكم مجرى ما حنقولنا أد أيان ولا student number waxaan leenahay 112 magaciisana la yiraahdo aadi Abdiqaadir ayaa la yiraahdaa kalaaska uu dhigto waa ayuu dhaana kalaaska uu dhigto kalaaska 18aad iska dheh marka hadda wax yar ayaa inaga qadan meeshaan male iyo female uu yahay ma muuqdo marka dib ayaan aan saxno dib ayaan saxno waxaan leenahay galoosna ay naga dhasayso galoosde baalka asay ku dhufo student form waxaad leedahay edit or delete
kadibna dheh student numberka dooro edit dheh marka waxaynu leenahay ka maqan ah label yar soo qaado waxaad ku qortaa mail waxaad kala soo qaadataa label kale waxaad ku qortaa female mushkiladu waxay tahay meeshaan rabna kuma dhufanin female waa kan iska leh kadibna naga save and close sidii hore aan aragnay aan furno software-ki waa kana kadib waxaan add ayaanu leenahay waa 111 arday bixisa aad ku qoraysaa fasalkiisa aad ku qoraysaa kadib male iyo female wax uu yahay ayaad jeeg saaraysaa kadibna taariikhda uu dhashay ayaad ku dhufanaysaa kadibna arday wax uu ahaa ku qoraysaa waxaad hartaa ku qoraysaa kadib meeshaan ku dhufanaysaa waxaad leedahay laba mar ayaad click kula sida meesha muuqdo double click aad sawir ugu dirtid sawirka meesha ku diro ayaad tegaysaa sawirka shaashada ayuu inoo yaalaa waxaan ku qoran database pictures sawirka ayaad soo qaadaysaa waa soo dhigay sawirka ujeedo waa ka markaad mid kalena ku dirtid waxaad leedahay save mid kalena ku dirisna waxaad leedahay add ayaad leedahay kodka uu ku baniyo 112 ardayga ah magacaad ku qoraysaa magacuna ayaad soo qaatay magacii ayaad ku qoraysaa kadibna galaaska uu yahay ayaad ku qoraysaa male hadduu yahay female hadduu yahay kadibna taariikhdii uu dhashay ayaad ku qori meeshaan wax uu yahay ayaad ku qori waa arday warbixin ayaad sii raacinaysaa kadibna sawirka laba mar ayaad ku dhufanay sawirkaas soo gelinay macnaha sawirku waa isleeyahay sawiradu waa isleeyahay laakiin kaliya waxay tahay inaad ku fahantid kadibna save ayaad leedahay dadaad qof kale oo qofka saddexaad ayaan ugu dhigi doono ayaad ku qoraysaa kadibna magaciisa aad ku qoraysaa fasalku uu yahay aad ku qori male hadduu yahay female uu yahay taariikhdu dhashay yacni intaan keliya maahan hadba waxay kugu xiran tahay foomka saad u qorto iyo ardayga siduu yahay kadibna sawirkiisa intuu ku jiro ayaad soo qaadaysaa dhag ayaad ku leedahay save ayaadna leedahay hadda tusaale intaan xini ka hor aan fiirino bal iskalo iska dheh waa imaaday mar kale macalinka imaaday uu furay foomkii furay maxay ku dhuftay laba mar oo kili dhehe hadda kana horeeya waa qofkii ugu horeeyay aan gelinay dadka kale hadduu rabo saan ayuu leeyahay soo qaadaya qofkaas ugu horeey qofkaan ku xigo waa qofkan waayo waa 12 markaas wataa waa Cabdiraxmaan baa yiraahdaa kuwa kale waa Cali Abdiqaadir waa 112 waa fasalka isdeedaad wataa warbixintiisa kan meeshaan ku qoran tahay waa yani saan ayaad wadaysaa warbixinta haddaad rabto midkaan faaraxa inaad ka bedesho aad rabto yani fasalka inuu kan ahayn uu yahay fasalka tobanaad uu yahay ayaad leedahay waad ku qoraysaa ayaad leedahay haddaan si guud aan soo noqono faaraxii fasalkii 10 iyo 10aad habba edit ayuu leeyahay delete ayuuna waana tiri kartaa marka intaa aynu kusoo gabagabeynaa cashirkeennii marka waxaan rajeeyay inaad adigana dib u sii baarto intaynu marka barnaamijkan mid lamid ah aynu dib u kulmayno anigoo Cabdiqaadir Aadil leh sidaa iyo nabaadiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.